odayaal dhaqameed horta siyaasadda Soomaaliya gacan ku jirta odayga dhaqankan wuxuu aaminsan yahay gabadha inuu dhaar ku galay wiilkana janno marka taas horta barbalaan ku badan oo haystaa waxaan rabaa aniga dhiiri gelina in gabdhuhu kor u soo qaadaan xuquuqda bini'aadamka inay u doodaan hablaha Soomaaliyeed aynu ku soo korino kalsooni inay cod leeyihiin inay xaq leeyihiin inay xuquuq leeyihiin xuquuqda hablaha Soomaaliyeed waxay ka bilaabantaa guriga waxay ka bilaabantaa hooyadii ilmahay dhashay wiilkiya gabadhii isku si xaquuq uma siinayso hooyadeedii dhashay ilmihii ay dhashay wiilkii gabadhii isku si cadaalad uma sameynayso hadii xitaa ay iskuul wada geyso isku tagaan inantii Soomaaliyeed markay soo noqoto gurigii halkaas xijaabkii maradii ku soo dhiganaysa weelkii bay dhaqaysaa caruurtii bay haynaysaa gurigii bay nadiifinaysaa waxa laga yaabaa 12 habeenimo 12 habeenimo in iyadoo tooshir ifsanaysa ay buugi fiiriso wiilkii Soomaaliyeedna iskuulkii markuu ka yimaado banooni buu soo ciyaaray society-gi buu dhexgelaya shaqo aadaya lacag buu soo shaqaysanaya dastuurkeena cadaaladda inuu ka dhex raadino horta waa ka gurigeena ka bilaabmaya waa ka hooyinimada ka bilaabmaya marka caruurteena inuu cadaalad sameeyno hablaha Soomaaliyeed aynu ku soo korino kalsooni inay cod leeyihiin inay xaq leeyihiin inay xuquuq leeyihiin anaga diinta islaamka intayna siisay hadii la siiyo waa naga badan taaba qaaran ugu soo haraay haleeyahay waxaas diinta idimo ogolo diinta ay diiday diinta horta xaq ugu badan anakayna siisay gabadha xaq waxay leedahay oo siyaasadda uu ogoshahay waxbarashada uu ogoshahay shaqay uu ogoshahay nolol inay ayada doorato cid ay guursay uu ogoshahay xaq inta oo qof bini'aadan uu leeyahay diinta islaamka qofku ugu badan ay siisay hooyada waay anaga marka waxaan naga rabaa in anaga ogaano oo senator Naciimo sheegtay guryaha ka soo bilaawno gabadhii wiilka isku xaq inay yihiin iskoolka markay iskala imaadaan subax haday quraacda dubta duurka inuu qadada kariyo markay dharka dhaqayno guryaha hagaajiyo in horta meeshaas laga soo bilaabo way si saxda ah odayaal dhaqameed horta siyaasadda Soomaaliya gacan ku jirta odayga dhaqankan wuxuu aaminsan yahay gabadha inuu dhaar ku galay wiilkana janno marka taas horta barbalaan ku badan oo haystaa taas inaan ka gudubno waa waxaan ugu kalifayay inaan 30kan aan dhaxno ha laga dhigo waxaan rabaa aniga dhiiri gelina in gabdhuhu kor u soo qaadaan xuquuqda bini'aadamka inay u doodaan ama aan u doodo xuquuqda bini'aadamka insaanka Ilaahay siiyay karamada uu siiyay nidaamka qabiilka gabdhaha uma heeliyo gabdhuhu marka way u yihiin ka guuraan yiraahdaan nidaamka qabiilka ka guurayna xeerka qabiilka saa sheegay waxa ka miisan dajinin hadaada adigu geedkii baraadan waxa aadan xeerka ka dajinaynin kama faa'iidi karto qofkii ka faa'iidaya ayaa qoranaya dastuur in la yeesho gabdhaha ugu baahi badan waa sax waay yaa u doodaya gabdhihi waa inay soo baxdaa gabar culumada ka tirsan oo tafsiirka la soo fariisata oo xadiiska la soo fariisata oo fiqhiga la soo fariisata gabar 2 3 4 waa inay timaadaan